waxaa laga yaabaa xanuunka adduunyada qofka ku dhacaya inuu noqdo sabab uu jannada ku galo cabdullaahi ibn cabbaas saxaabiga la yiraahdo iyo cataa bin abi rabaah baa wada socday oo ardaygiisii cabdullaahi ibn cabbaas baa wuxuu ku yidhi cataa alaa uriyaka mara'atan min ahli aljanna ma ku tusaa gabadh ahluljanna ah oo adduunyada dul tallaabsanaysa qaala qultu bala haayay tus baan ku yidhi buu yidhi qaala wuxuu yidhi haadihi almar'atu sawdaa'u gabadhaa madow atat innabiya sala allahu calayh wasalam nebigay u timid faqaalat innii usracu wa innii atakashafu fadcu llaaha lii waan suuxaa kadibna cawradayda qaawismatee alla ii bari bay ku tiri qaala wuxuu rasuulku ku yidhi in shi'ti sabarti walakay janna haddaad doonto waad iska sabri oo jannaad leedahay wa in shi'ti dacawtu llaaha an yucaafiyaki ama allan kuu baryi si uu kuu caafiyo qaalat asbiru xanuunka waan ku sabri bay tiri fa innii atakashafu fadcu llaaha an laa atakashafa fadaca laha waxay ku tiri xanuunka waan ku sabriye alla ii bari inaanay cawradaydu faydmin rasuulku ilaahay buu bariyey sala allahu calayh wasalam xadiidkan imaamu tirmidi baa jaamiciisa ku wariyey waa xadiis saxiix ah